السلام عليكم. سلام كبعدي waxaan idin rajeynayaa barwaaqo iyo caafimaad iyo cimri dheer oo cibaado suuban ay ku midaysan tahay. waxaan maanta jeclaystay inaan kula wadaago mid ka mid ah sheekadeyda. hubanti qof kasta oo Soomaaliya ku dhashay kuna soo koray waxa uu la kulmay waxyaabo kala duwan oo aan marnaba ka dhaqmin ama ka tirmin maskaxdiisa. balse tani waxay igu tahay mid ka mid ah waxyaabihii nolosheeda intii aan noolaa ugu saameynta badnaa. burburkii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ka bacdi waxaa jiray jiil xilligaasi soo korayay oo loogu magac daray jiilkii burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya. yeelkeedii waxay dhaxleen dhacdooyin iyo waxyaabo aanan qalbiga bini'aadamku aqbali karin. aniga oo waqtigeena ilaalinaya ayaan jeclaystay inaan dhowr daqiiqo dhagiinaya amaasaan oo aad sheekadan ila wadaagtaan. waxaan ahaa da'aadda 8 sano ilaa iyo 7 sano. waxaan ku noolaa Muqdisho oo ahayd halkii aniga aan ku dhashay kuna soo barbaaray. waqtigeyga dhammaantiis baan ku soo qaatay. ma jirto magaalo kale oo aan dhihi karo noloshaada iyo mustaqbalkaaga ayaad ku bixisay marka laga reebo magaalada Muqdisho. abaal iyo xushmad iyo sharaf badan ayaan u hayaa, waayo garaadka iyo afka iyo cilmiga maanta aan idinkula hortaaganahay dhammaanteedba waxaan kala imaaday oo bilowgeedii aas u ahaa magaalada Muqdisho. waxaan dhihi karaa waa magaalo aan qalbigeyga marnaba ka go'i doonin. waa magaalo marnaba aan iloobi doonin. waana meesha aan ugu jeclahay inaan ku noolaado nolosheeda inta ka hartay haddii la ii weydiin lahaa go'aanka halka aan ku noolaanayo. sheekada ayaa waxay tahay mid aad u xanuun badan. fadlan haddii ay ku saameyso ama indhahaaga ilin ay ku soo istaagaan ama aad murugooto, ujeedkaygu ma ahayn inaan adiga ku dhibaateeyo ama qalbigaaga dhaawac u geysto, laakiin waxaan rabaa reer Muqdisho inaan dareenkan la wadaago iyo cid kastoo Soomaali ah. aniga oo yar sidaan hore kugu soo sheegay da'deeda oo ku sugan goob shaaxa laga cabo ama meel yar oo meherad maqaaxi ah ayaa waxaa halkaa maqaaxida ku ganacsanayay hooyo Soomaaliyeed. dhabta waxay ku haysaa cunug yar oo gacanta ka go'an. ma ogaa kari sababta cunugaasi gacanta ka goosay, laakiin waxaan qiyaasanayaa ama sawiranayaa inay saameysay dirirtii iyo colaadii xilligaas ka jirtay. hooyada ayaa dhabta ku heeso waxayna ay siinaysaa koob ay ku jiraan caano, walow oo ku lifaaqnaa shaax, laakiin caanaha ayaa u badnaa. waan dareemi karaa duruufaha jira xilligaasi. laga yaabay in caanaha iyo shaaxuba la isugu barhayay cunugaas yarka ah. waxaan la socday xilligaasi aniga iyo waalidkayga oo xilligaasi ka raacayna meeshaasi gaadiidka bi'alka ama baska loo yaqaano. islaanta shaaxa iibinaysa ama hooyadana ay joogtay meesha baabuurta laga raac agteeda. xilligaasi waxaa meesha u fadhiyay hal nin oo gaari gacan ku fadhiyay, shaaxna ka cabayay, xabad rootina gacanta ku haysta. dad badan way garan doonaan rootigii yaryaraa ee abuukayga ee dhowr ka xaba 1000 shilin ama 500 la iibinayay xilligaasi. markii uu dhameysay shaaxiisii rootigiisii wuu iska dhaqaaqay. ayadoo aan ka soo wareegin daqiiqado aan sidaa u badnayn ayaa waxaa meeshii soo istaagay nin qori wata. ka bacdina waxa uu weydiiyay xilligaas inkastoo xasuusteydu aana si fiican u xasuusan waxa uu weydiiyay, laakiin waxaan u badinayaa waxa lagu murmay inay ahayd taraqa sigaarka lagu taarto iyo jansiigar inuu ahaa. ma xasuusan karo, laakiin wax baa dhex maray islaanta iyo weliba ninka qoriga wata. ninkii oo u muuqda inuu ka carooday hadallada ay ugu jawaabtay maamada iibinaysa ama qofka haweeneyda dumarka iibinaya shaax. laakiinse durbadiiba waxaan ka war helay xabad ka dhacday qoriga ninka uu haystay oo islaantii halkaas juuta kaga dhacday. hooyo ila socotay
ayaa isku dayday inay iga qariso oo isku kay dhigto, waayo waxaan dareemayaa in aan ahay xilligaasi qof aad u yar. haddana hadday lacala wax dhacayaan waxay ka fikiraysay in cunugeeda ama awlaadeeda aysan waxba ku dhicin. iyadoo gacantii sidii iigu dheggan oo ay gadaasheeda i marisay ayaa waxaan u jeeday haweenaydii shaaxa iibinaysay cunugeedii dhabta u saaran oo uu noqday wada dhiig ama wada gaduud xinjir ah. maskaxdiina ay wejiga uga daadatay. cunugii ayaa ooyayay, wuxuuna ka soo degay dhabta hooyadiis oo weliba kursigii ay fadhiisay dhinac ula dhacday. waa uu soo gurguurtay, kaaga sii daranay gacanta ayaa go'nayd saqiirkaasi. da'diisana waxaan ku qiyaasayay 1 sano ilaa 1 sano iyo dhowr bilood. wixii intaa ka dambeeyay, hooyo iyo dadkii meesha joogay ayaa soo orday oo u soo gurmaday qofkii haweeneydeen xabadda ku dhacday. ninkiina asaga iyo aamoodid inuusan ahaynba dambiilo ama shaqo qaran uu qabtay ayuu waddada isaga dhaqaaqay. waxaa taa iiga sii darnaa qof kasta oo goobta soo gaaraa hadallada uu dhahayay ee aan maqlayay xilligaasi waxaa ka mid ahaa: warmaad qaadaan oo isbitaal adkaysaan, alla wuu naf baxaysaa, way dhimanaysaa, iyo weliba murugo iyo qiiro qof kastaba qalbigiisa, laakiin quluubta iyo qalbiga aana jirin. markaas wixii ka dambeeyay, cunugii ayaa dad meesha ka qaaday. kabacdina wixii markaas ka dambeeyay, waxaan habeen walba i hor imaanayay oo ay maskaxdeeda ku soo laalaabanaysay wiilkii yaraa oo gacanta ka go'naa ee ka soo hoos baxayay hooyadiis, weliba gurguuranayay in ninkiigii naagta dilay isla markiiba niman kale oo hubaysnaa ay soo qabteen, kabacdina ay keeneen goobtii uu ku dilay naagta. dhammaystirka sheekadan ayaan kula wadaagi doonaa qaybta 2. waa mahadsantihiin sida wanaagsan aad u dhagaysateen qisadeedan xanuunka badneed ee ka mid ah waayaha mugdiga ee nolosheeda iyo weliba dadkaygii qalbiga madoobaa ee aan marnabana naxariista iyo weliba waajibaadka diiniga aana ka soo muuqan. macnaha ulama jeedi inaan dad xun nahnay anaka dhan, laakiin qisadaasi wixii halkaa ka dhacay ayaan ku xeendaabayaa in aan nahnay. kii wax dila wuxuu ahaa qof aad u naxariis daran. dadkii halkii ka dhowaana waxay ahaayeen kuwa aan waxba dhaamin, waayo ma jirin cid xilligaasi gurmud u suubisay hooyadaasi, walow ilmigii yaraa saqiirka ahaa uu gargaar helay.